السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبشر حسن اشتفتم أم أبشر حسن فاونديشن يعني ومن محمد عبديه دمان ولا لها ميلان جوجنا بلا هاي نقولنا بديالو فيديو قام وفيديو مهد علينا أنا ربو قبلها ولا لها صوماليات أن هذا خطك اسكو برناي أن قف runtii weli aan si personally aan isu baranay aan isu hor istaagnay uusan jirin dabcan gabdho aan wada hadalnay way jiraan laakiin gabdho badanoo waxaa jira xataa aan weli aanan wada hadlin saasoo tahay ii muujiyey runtii kalsooni aaminaad iyo yacni dareen aan wada qabno inuu jiro gabdhahaas runtii si guud iyo si gaar ahaaneedba waxaan rabaa gabdhaha walaalaha inaan uga mahadceliyo runtii kalsoonidaas iyo aaminaadaas walaaltinimo ay ii muujiyeen waayo waqti waxaan ku jirnaa runtii kalsoonidii ay dhumayso wada hadalkii qof walbaba uu shaki qabo oo wada hadalka xataa markii biribaad la iskula hadlo la kala shakinayo inkastoo dhaqan Soomaali ahaan markaan fiirino haddaan dumar Soomaaliyeed nahay waligeen dhexdeena markay noqoto aan isku waanin jirnay inaan dumarka aysan is aaminin in dumarka saaxiibtinimadooda ama wax wada qabsigooda ama isu imaadkooda inuu shar badan yahay in uu maxaa la dhahaa isqabqabsigooda badan yahay in maaragtay jalaafaynta u badan tahay inay yacni markaad waxaa arkaysaa marar badan inaan ka sheekayno xumaanta na dhex taala ee aynaan samaanta raadinin inaan dad aan nahay maaragtay isku xanuun ah inaynu nahay dad isku culays saaran yahay in aynu nahay mujtamaca qayb ka mid ah oo muhiim ah oo loo baahan yahay in ay khibradahooda isdhaafsadaan caruur korinta maxaa la yiraahdaa ii sheeg cilmiga kale in aan ma arkinoo aynaan noqon dad qofba qofka kale iska weynaysiiyo ama qofba qofka kale ka xirxirnaado ama qof sidee ummadaha kale waxaas nalama qabaan yacni way jirtaa mar walbaba conflicti xoogaa wuu jiraa laakiin conflicti dee rag iyo dumarkuba waa ka dhexeeya ya caruurta iyo dadka waaweyn waa ka dhexeeya laakiin qaabka annaga Soomaali haddaan nahay dumarkeena dhexdooda loo buunbuuniyo inay dumarku is aamini karin inay dumarku iyagu xasid isku yihiin inay dumarku iyagu yacni isxumintoodu badan tahay adduunyada kale lagama qabo oo kama jiro marka waxaa arkaysaa hadday gabdho guri wada joogaan in leeyahay meeshii dumarku ku badan yihiin deexinkaa ku badan iyo xumaanta iyo xasaradda waa wax jaa adigoo yar lagugu quflay meesha la leeyahay qofkuna ogow waxa aad adiga ka malaysid buu noqdaa ya waa wax yacni oo maxaa la dhahaa cilmiyan ah ma aha keliya in yacni cilmiga oo psychologiyada lagu ogaaday inkastoo research la sameeyey oo lagu magacaabo the Pygmalion effect ya the Pygmalion effect in la yiraahdaa u malaynaya hadda ama the Pygmalion effect baa la yiraahdaa oo researchkii laga sameeyey tusaale waxaa lagu soo qaatay macallin laba wiil oo uu maaragtay maxaa la dhahaa macallin u yahay dhanka isboortiga laga fiiriyey labadaa wiil midna mar walba macallinku wuu maaragtay maxaa la dhahaa wuu dhiirageliyaa oo wuxuu yiraahdaa waad ku fiican tahay isboortiga inkastoo labada wiil ay yihiin laba qofood oo isku mid ah haddana midna dhiiragelin iyo mar walbaba wuxuu ka aaminaa inuu yahay ilmo firfircoon ilmo waqti walbaba maxaa la dhahaa maaragtay wuxuu ku yimaadaa waqtigii loogu talagalay trainer inuu yacni tababarka waqtigii loogu talagalay buu yimaadaa oo sooma daaho midda kale maxaa la dhahaa mar walba oo uu
ama gool dhaliyo ama uu maaragtay maxaa la dhahaa alamiiteeyo oo uu yacni wuxuu ka dareemaa macalinku inuu mar walbaba garab taagan yahay. taasina ilmihii dhiirigelin bay siisaa wiilkan kale oo wiilkii wuxuu noqday nin actiif ah inuu dee wuxuu rabaa macalinkii inuu mar walbaba maxaa la dhahaa ku farxo oo macalinku mar walbaba wuu kacashaa oo maxaa la dhahaa ciyaartuu ka qaybgeliyaa oo de wuu sii dhiirageliyaa wuu sii maxaa la dhahaa tababarkiisa iyo siduu ugu sii dhiirado horumarkiisana cunugan waa kasii bataa isagana niyad buu u hayaa cunugii oo mar walbaba maxaa la dhahaa wuxuu noqdaa ilmo actiif ah. midka labaad wuu ka duwan yahay oo macalinku wuxuu u arkaa inuu yahay cunug maaragtay aan ku fiicnayn tababarka cunug aan maaragta maxaa la dhahaa aanan wixii loo diro ama goolashii laga sugayay inuu dhaliyo ama qaabkii orodkii iyo waxay oo dhan aanan lahayn. taasna ilmihii kale waxay ku ridaa niyad jab ah in uusan macalinkiisiiba uusan wax wanaag ah ka filanayn. sidoo kale waxaa experiment bay ahayd oo uu magaceeda kale waxaa la yiraahdaa experimentigaas waxaa la yiraahdaa Rosenthal experiment. wuxuu ahaa nin Maraykan ah oo researchkaas markii ugu horreysay asagu bilaabay ama ilaa iyo haddaba yacni researchkiisii la isticmaalo. wuxuu sameeyey marka iskuul ayuu mar kale lagu sameeyey maxaa la dhahaa researchkaas oo iskuulka bilowgiisii markuu iskuulka sanad dugsiyeedku markuu bilaabanayay ayaa caruur kulligood markii hore laga qaaday imtixaan oo yacni maxaa la dhahaa IQ testiga ah baa laga qaaday ama maxaa la dhahaa testigan oo maaragtay caqliyanka ah baa laga qaaday in la ogaado cunug walbaba IQ-giisu sida uu yahay baa laga qaaday la ogaaday. caruurtoo dhan waxay ahaan caruur wada caadi ah isku mid yacni cunug kale ka maxaa la dhahaa IQ sareeyey ma jirin ama ka maxaa la dhahaa caqligiisa yacni ka caqli badnaa ma jirin. marka laakiin macallimiintii baa waxaa loogu sheekeeyey qaarna caruurta ay galaaskooda maxaa la dhahaa ku jira inay yihiin caruur IQ-gooda uu hooseeyo qaarna uu sareeyo baa loogu sheekeeyey macallimiintii. waayo experimentiga la rabay in lagu sameeyo. aakhirkii iskuulkii markii dambe maxaa la dhahaa oo testiga haddana la sameeyey waxaa la ogaaday caruurtii macallimiinta lagu yiri caruurtani caruurta kale way ka caqli badan yihiin oo yacni IQ-gooda sareeya in ay yacni maxaa la dhahaa macallimiintii ay caruurtaasaa ula dhaqmeen inay yihiin caruur caqli badan oo ay markaa maxaa la dhahaa caruurtaas ay xoogga saareen in ay qaab ka awood badan oo ka maxaa la dhahaa actiifsan ama ka taaleenti caruurta waxaa loogu tilmaamay inay yihiin caruur maxaa la dhahaa oo taalentigooda iyo potensiyaalkooda uu sareeyo sidii bay ula dhaqmeen inay wax ka badan bareen in ay yacni awoodda saareen inay caruurtii dhiirageliyeen in ay adigu waad samayn kartaa in caruurtii kale oo la yiri maxaa la dhahaa yacni potentiyaal iyo talent ma laha oo IQ-gooda hooseeya la yiri inaysan saa ula dhaqmin inaysan dhiiragelin in aysan caruurtii ma aragtay maxaa la dhahaa wada shaqayn fiican iyo kaliya ma arkinoo ula dhaqmeen si kale macallimiintii. taasna waxay keentay aakhirkii kuwii la yiri waa caruur talent leh potentiyaal leh IQ-gooda sareeyo in ay ka caqli bateen kana aqoon sare mareen kuwii kale. marka taasi waxay ku tusaysaa mar walbaba qofku sida loola dhaqmo oo ilmuhu markuu yar yahay wax laga dhaadhiciyo inuu noqdo. taa waxaan ka wadaa gabdhaheena Soomaaliyeed marka ugu horeysaaba waxaana la ka dhaadhiciyaa yacni inaynan is aaminin in ay gabdhuhu ay ma aragtay maxaa la dhahaa ay yihiin dad iyagu xin isku ah dad iyagu ma aragtay aan waxba isu quurin dad iyagu annagiina intii baan qaadan. marka qof walba wuxuu ku sheegaya naagiyana kuu sheekayn naagiyana gurigaaga kaa dumin naagiyana ninkaaga kaa qaadin naagiyana tan ku yeelin naagiyana sitaaku naag hala sheekaysan naagna waqtigay kaa qaadaysaa naag saas ay tahayna dumarku ma aha kuwa waqtigooda badanaa ku khasaariya inay makhaayad fariistaan inay ka sheekeeyaan inay fadhi ku dhidirir sameeyaan in ay jar ciyaaraan intaa dumarku camal bay leeyihin haddana waxaa la leeyahay yacni
saas ha samayn kan ha yeeliga ayagii baa lasii kala ceyriyaa si aysan danahooda uga sheekaysan si ay maxaa la dhahaa waxa wada dhibaya oo ayagoo dhan maxaa la dhahaa culayska ku ah aysan meel isula dhigin si aysan caruurtooda aysan ma aragtay maxaa la dhahaa si xaqsowrid ah aysan maxaa la dhahaa u wada korin oo gabadha iyo wiilkaba ama maxaa la dhahaa ii sheeg aysan gabadheedii hooyadii aysan gabadheedii aysan u noqonin hooyo yacni u quurta gabadheedu inay meel sara tagto inay maxaa la dhahaa laakiin gabdhaheena waxaan ku korinaa badanaa na hadhow baa la igu kacaayaya yaa hadhow baa waxa leeyahay tan yaa soo koriyey yacni aadan noqonin hadalkii baan u diidnaa xataa qofku adduunyadana waxaaba la ogaadaba hadalku muhiimadda uu leeyahay qofku inuu eray bixinta inuu qofku uu luuqadda aad markaa baranaysid waa inaad yacni erayada waa inaad wax badan ka taqaanaa si aad dareenkaaga u cabiri kartid si aad maxaa la dhahaa qofba moor uu qofka kale ka eraya badan yahay luuqadaha uu ka hadal badan yahay wuu ka caqli badan yahay wuuna ka aktiifsan yahay waa wax la ogaada caruurta ayagoo yaryar oo uurka hooyadeed ku jiraba waxay ku bilaabaan halkan inay buwaagta loo akhriyo markay yaryariin ayagoo baa buuggii loo sii akhriyaa cajaladaha waxaa loo daaraa maxaa dhahaa sheekooyinka moor ilmaha sheeko loo akhriyo sheeko loo daaro sheeko ay iyagii akhristaan caqligoodaa sii siyaada iyaga annagana ilmaheeniyo 5 jira ama 4 jira baynaan waxaan u ogolayn inuu hadlo oo mar waxaa leeyahay kan hadal badana oo hadalka lagu celiyaa amaba hadduu su-aal ku weydiiyaanba su-aashii looga jawaaba waxaa su-aal aakhiraadkan aad sheegaysid maxay tahay intaanaaba la egtaa maxaa ku baray waxa kaas qofkii waxaa lagala diriraa in uu hadal ahaan uu dareenkiisa ku cabiri karo uu dadnimadiisa ku sheegan karo oo gabdhahana wayba kasii daran yihiin marka walaalahay aan is aamino naftaada aamin qofka walaalkaaga kalena aamin waa muhiim qofka hadduu ku xumeeyo dhib ma laha ka tag isaga tag laakiin ha ku mashquulin qofna ha ku mashquulin naftaada ku mashquul mar walba waxaad isku daydaa inaad naftaada tartan kula jirtid qof kaloo walaala tartan hala gelin qofkani asagay u taala iyo damiirkiisa insha allah khayr baan rajaynayaa ha laga raali ahaada haddii gaf loo arko anigu qof bini aadana oo walaala inaan ataaga ma rabo waxaan rabaa dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed iyo bini aadanka dumarka adduunka ku nool oo dhan sida ay u wada dhaqmayaan yacni aan noqono dad ka mid ah oo annagii aynaan maaragtay noqonin dad intaa jilaafo ama isu dhigaya ama inay kala faa'iidaystaan ama midba midda kale inay yuus garaysa ay rabto ama ay u qaadato inay iyada ka caqli badan tahay oo ay isticmaali karto annagoo dhan waxaynu nahay dad isku dareen ah annagoo dhan dabcan waynu kala duwanaa dadku waa maxaa la individual saas ay tahay waxa adiga walaashay oo ma aragta aad dheer tahay waan kuugu faraxsana hala iga raali ahaada markale haddaan hadal khaldan iraahday qof walaala oo aan rabo halkan inaan yacni criticism ku sameeyo ma jirto waxay iga tahay walaalayaal annagoo dhani waynu isu baahannahay waxaana wax lagu gaaraa waa wadajirka waxaan ku gaari weyne keli ahaan ku gaari mayno marka dhammaanteen khayr baa idiin rajaynayaa mar labaad iyo mar saddexaadna qofna yuusan u arkin aniga asaga ataagayo ama aan xumaan u hayo qof walba oo gabar walba oo Soomaaliyeed wanaag waxaan ahayn umaha walaalayaal waxaa kaloo aan jeclaan lahaa gabdhaha walaalaha ah ee ayagana jecel in aan wada xiriiro oo yacni aan ama telefoon ku wada hadalno ama maaragtay message ku wada hadalno in ay insha Allah igala soo xiriiraan Facebook message